السلام عليكم صاحب يال قصة نبي موسى ومد كمدا قصصك ugu muhiimsan diinteena islaamka nabi Muuse waxa loo soo diray in uu ka badbaadiyo reer bani Israa'iil dulmiga Fircoon waxa uu ka mid yahay rusushii ugu waaweynaa ee Alle u soo diray bini aadinka nabi Muuse waxa uu ku dhashay Masar xilligii Fircoon uu ahaa boqor aad u dulmi badan isla markaana amray in la dilo dhammaan wiilasha cusub ee reer bani Israa'iil sababtuna waxa ay ahayd waxa uu ka baqayay in wiilasha ay noqon doonaan kuwa hoos u dhigi doona xukunka Fircoon hooyadii nabi Muuse si ay u badbaadiso wiilkeeda waxa ay ku riday sanduuq waxa ayna ku tuurtay wabiga Niil sanduuqaasi waxa soo qaadatay xaaskii Fircoon oo ku qanacday wiilkan yar waxa ayna go'aansatay in ay korsato iyadoo Muuse uu ku soo koray gurigii Fircoon markii uu nabi Muuse ku koray gurigii Fircoon waxa uu ahaa nin geesi ah oo aqlilna leh maalin maalmaha kamid ah waxa uu dhaxgalay dagaal waxaana isdagaalayay nin Masar ah iyo nin ka soo jeeda reer bani Israa'iil waxa uu si qaldan u dilay ninkii Masaariga ahaa isagoo difaacaya ninkii reer bani Israa'iil ahaa nabi Muuse waxa uu ka cararay Masar isagoo ka baqaya in loogu aargudo oo la dilo ninkii uu dilay waxa uu u cararay dhulkii Madyan nabi Muuse waxa uu ku noolaa Madyan muddo dheer halkaasina waxa uu kula kulmay nabi Shucayb oo isagana ahaa nabi kale nabi Shucayb waxa uu siiyay nabi Muuse gabadhiisa in uu guursado oo la noolaado isagoo shuruud looga dhigay in uu u shaqeeyo muddo 8 sano ilaa 10 sano markii uu dhameeyay waqtigii shaqada ee uu kula jiray nabi Shucayb nabi Muuse waxa uu go'aansaday in uu ku laabto Masar intii uu ku sii jiray safarkiisii nabi Muuse waxa uu arkay dab ka kacaya buuraha ama Jabal Siinaa halkaasi uu kula kulmay waxyigii uu Alle kula hadlay isagoo si toos ah ugu amray Ilaahay in nabi Muuse uu noqdo hogaamiyaha reer bani Israa'iil waxaana la siiyay mucjisooyin ay ka mid yihiin ushii oo isku bedeli jirtay maska iyo in gacantiisa uu jaabka galiyo uuna ka soo saari jiray ayadoo ifeesa nabi Muuse waxa uu ku laabtay Masar waxa uuna u tagay in uu waani uuna u wacdiyo Fircoon isaga iyo walaalkiisa nabi Haaruun wuxuuna u sheegay Fircoon in uu joojiyo dulmiga uu ku hayo reer bani Israa'iil Fircoon waa uu diiday isagoo waliba ku tilmaamay nabi Muuse in uu yahay saaxir si uu u muujiyo mucjisooyinka uu Alle siiyay nabi Muuse waxa uu tusay Fircoon mucjisooyin oo ka mid yihiin in ushiisa weyn ay isku bedeshay mas laakiin Fircoon waa uu diiday in uu rumaysto wuxuuna diyaarsaday Fircoon saaxiriin badan isagoo ku amray in ay la tartamaan nabi Muuse Fircoon waxa uu go'aansaday in uu sii kordhiyo cadaabistii dhibaatada uu ku hayay reer bani Israa'iil ugu dambeyntii Alle waxa uu amar ku siiyay nabi Muuse in uu la baxo dadkiisa ayna ka cararaan Masar Fircoon iyo ciidankiisii ayaa dabagalay ilaa ay ka gaareen badda cas markaasi Alle waxa uu ku amray nabi Muuse in uu ushiisa badda ku dhufto taasoo badda ka dhigi doonto in ay labada dhinac u kala baxdo kadibna ay noqoto wada ay mari karaan waxayna reer bani Israa'iil ka gudbeen badda iyagoo nabad qaba Fircoon iyo ciidankiisana waxay isku dayeen in ay raacaan laakiin baddii ayaa isku soo laabatay waxa ayna ku nafwaayeen badda dhexdeeda Fircoon iyo ciidankiisii ugu dambeyntii reer bani Israa'iil waxa ay ku noolaadeen dhulkii cidlada ahaa muddo dheer oo Allana waxa uu siiyay nabi Muuse Tawraad oona ahaa kitaabkii lagu soo dejiyay nabi Muuse waxaana la rabay in ay raacaan reer bani Israa'iil si kastaba ha ahaatee reer bani Israa'iil waxay marar badan diideen amarada Alle iyo nabi Muuse amarkiisa iyagoo waliba ku caasinaya oo sameysanaya sanamyo ay caabudayaan oo ay ka dhiganayaan ilaahyo qisada nabi Muuse waxay tusaale u tahay dulqaadka hogaaminta iyo sida loo qaabilo dulmiga waxayna xambaarsan tahay casharo badan oo ku saabsan tabakkalida Alle iyo samirka dhibaatada iyo la dagaalanka dulmiga qisada nabi Muuse waa qiso cajiib ah oo wax badan laga baran karo oo mudan in laga faa'iideysto anagana halkan ayaan ku soo koobeynaa qisadii nabi Muuse waxaana inoo balan ah qisadii nabi Haaruun oo ah walaalkii nabi Muuse hadduu Alle idmo insha Allah